qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa ka cabanayo maciishadii oo sare u kacday iyo waliba doolarkii sarifkiisa oo isna kacay sida faafahinta warkan uu Garowe nooga soo diray Khaliif Geele. suuqyada magaalada Garowe ayaa laga dareemayaa sicir barar xoogan kadib markii doolarku uu kacay waxaana gudaha Garowe halka doolar lagu sarifayaa 42,000 oo shilin Soomaaliya iyadoo dadka danyarta qaarkood ay ku adkaatay inay wax iibsadaan maadaama ay maciishadii cirka isku shareertay qaar ka mid ah ganacsatada yaryar oo la hadlay TV-ga RTN waxay sheegeen in dawladdu ay kaliya ka qaado canshuurta balse aysan hoos u dhigin shicibkii waa baqtiyeen danyartii way baqtiday wax ma galato muxuu ahaayay ganacsigii wuu naga baqtiyay cid mataqaana intaas oo jeer baanu dacwoonay oo dawladda u dacwoonay oo baarlamaanka u dacwoonay maanta u dambeysay baarlamaanku waa nacaayeen cid wax noo qabatana ma jirto ganacsigiina wuu naga baqtiyay waxaanu doonaynaa haddii dawladii jirto in wax naloo qabto dadka maaragtay wax loo qabto dadka maaragtay muxuu ahaayay sirca iyo saxriirka laga dhaafo baanu doonaynaa intaas oo jeer baanu ku hadalay saxaafadda waxaanu leenahay markaanu in la hadalno hadalkayga ma soo daysaan cashuurna wax noogama baaqato maalin walba cashuur baa nala ka guraya maalin walba cashuur baa nala weydiiyaa oo nalaga qaada maxaan cashuurta ku bixinaa annagii baaba waxa weeyaan mayn isku jirnay baarlamaanka waxaan weydiinayaa doolarkan wareersan cidda looga cabanayo iyo sixir goyntiisa yaa looga cabanayaa oo wax ka qabanaya annagu waxa weeye doolarkan waan ku wareersanay dadkii waa baqtiyeen dadkii danyartaha way baqtiyeen suuqa maalin walba looga qaaraamaa wax looga ururiyaa dadka inta nool oo wax cunaysaa waa inta suuqa joogto ama dayn ha cunto dad leeyahay ama xoolo dadow ha cuneen waxa weeyaan doolarkii waa lagu wareeray halkii doolar waxba ku goynay waad aragtay oo kaash anagu waxa weeye waxaan ka caamanaynaa maanta doolarka oo waxa weeye waayahan bawaalan wuxuu marayaa hadda waxa weeye 42 qofkii wuxuu kuula imaanayaa 400 marbay xataa ahaan jiray $10 shaygii aad gadayso $10 300 baa lagu keenaya waxa lagu leeyahay iga siiso $7 iga siiso $7 xataa markaas rabtid ma noqonaysa xataa maxaan ku iraahdaa intii loogu talagalay marka anagu aad iyo aad baan waxaan uga cabanaynaa doolarka waxa weeye suuqiyo wax dhaqdhaqaaqa ay ka jirin oo waxa weeye suuq la'aan ka jidho doolarkii oo kacay oo maciishadii kale oo kacday wax imaanaya dawladdiina waxay sameynaysaa cashuur bay noo soo raadinaysaa wax kale ay noo sheegaysa ma jidho wallaahi ganacsiga suuqa xaaladda hadda ku jirta waa kii hoose baqtiin ka dhacdaan ka baqayna oo biilashii cunadii la cuni lahaa qudulduriga ilaahay afka kala jeexay oo qadaray laakiin aad baan waxaan uga baqsanahay waxaan guriyihii la aadni ciyaal kula noqono iska daafiyaan la baxna iyo koronto iyo biyo iyo xaalado noocaas inaan la baxna iska daayay khatar waxaan ugu jirnaa in ciyaalada dabkii loo shiday ay nagu daadaamaan sababahaasna waxaan u soo weynaynaa doolarka cirka aaday oo inay wax ku darmadaan aan wax ka dhicin halkan waa suuqa inji ee magaalada Garowe waxaa laga dareemayaa sicir barar aad u xoogan kadib markii uu kacay doolarkii oo halka doolar gacanta dambe lagu sarifayo 42 gacanta hore lagu sarifayo 40 waxay shacabku ka cabanayaan sicir barar iyo maciishadii oo qaali noqotay waxaana jira dad wax gadan waayay kadib markii ay maciishadii ay goyn waayeen doolarkii inuu noqday mid aan sal lahayn oo maalin meel tagay Puntland ay wax ka codsadeen in ay wax ka qabato doolarkan aan salka lahayn wadanka waxa weeye baarlamaanka waxa loo doortay ama loo dhaariyay inay dalka iyo dadka u shaqeeyaan dawladda iyo dadkana u dhaxeeyaan dadka shacabka dhib baa haysta doolarkii waa kacay ninkii miskiin ee neef ariga suuqa keensada maanta beerkaba uma gooyo neefkiisa uu gataa ama kiish raashin uma gooyo dadku waa xoolo dhaqato waa dad masaakiin waa dad ganacsata oo tabar yar wadanku dhaqaale ma leh shirkado ma leh waxa weeye shidaal inooma soo baxa inaga shirkado laga shaqeeyaa ma jirto dadku waa dad xamaasho iyo dad xoolo dhaqata dadka xoolo dhaqatada waxay gataan xoolahooda dadka xamaashayna wax ka sii iibsadaan kii maanta xoolaha dhaqanayna waa caqday oo ninkii maanta laba neef keensada laba haaf reerkiisii ku celin maayo Khaliif Geele wararka RTN Garowe.